Waxaan doonaynaa dekadii badda oo ay Itoobiya leedahay. Si kasta ha nagu qaadato, waa inaan xitaa awood ku raadinaa, ayuu yiri Ra'iisul Wasaarihii Itoobiya Abiy Ahmed bartamihii sanadkii tagay 2023. Subaxan oo sanadka cusub uu dhashay, waxa lagu waabariistay iyadoo jariiradaha caalamku ay qorayaan Itoobiya oo gaartay hadafkeedii ahaa badda cas. Waxa cajiib ah muddada gaaban oo ay ku xaqiijisay iyo sida ay ugu suurta gashay. Haddaba, heshiiska cusub ee Itoobiya iyo Somaliland muxuu uga duwan yahay midkii Ruushku uu ku khiyaanay Ukraine? Warbixintan ayaan ku eegi doonaa sirta ka dambaysa heshiiskan iyo meelaha ay isaga egyihiin kii Ruushka ugu adeegsaday inuu ku khiyaanay Ukraine. Maalin ka hor, Muuse Biixi oo ah madaxweynaha Somaliland ayaa lagu soo dhaweeyay caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Soo dhaweyn diiran oo uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee Bole International ee Addis Ababa. Ma ahayn mid la jeclaystay. Waxaa soo baxay in Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi ay heshiis badeed kala saxiixdeen maalinkii koowaad ee sanadkan. Heshiiskaasi ayaa dhigayay in Itoobiya ay la wareegi doonto maamulka badda cas ilaa 20 kiiloomitir oo loo xadeyn doono, iyadoo awood u lahaan doonto inay ka samaysato dekado iyo xarumo ciidan oo sida ay sheegtay ay ka dhisi doonto saldhig ciidan midka ugu weyn Geeska Afrika. Marka ay halkan joogto, waxaan dib u xusuusanaynaa sheekada Sevastopol. Sevastopol waa magaalo ku taalla gobolka Crimea oo ay ku dagaalamayaan xilligani Ukraine iyo Ruushka. Waa magaalada ugu weyn gobolka Crimea iyo dekadda weyn ee magaaladaasi oo ah dekadda ugu weyn guud ahaan badda madow ama Black Sea. Sida caadiga ah, gobolka Crimea waxa uu adduunku u aqoonsan yahay ilaa iyo imikan dalka Ukraine, laakiin waxaa awood ku haysta Ruushka. Sanadii 1997 ayaa Ukraine waxa ay gobolkani ka kireysay Ruushka muddo 20 sano ah. Heshiis u dhaxeeyay labada wadan. Waxaa sidoo kale heshiiskani ka mid ahaa in Ruushku uu la imaan karo gobolka Crimea 25,000 oo ciidan ah, madaafiic iyo hubkiisa casriga ah, iyo 22 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka. Heshiiskaasi waxa uu ku ekaa sanadii 2017 maadaama uu ahaa heshiis muddo gaaban ah oo 20 sano kaliya uu qorshuhu ahaa. Laakiin 5 sano oo dheeri ah ayaa Ruushka loogu daray kadib markii uu diiday inuu iska faarujiyo gobolka. Markii ay dhamaatay 5 sano ee la gaaray sanadii 2022 bishiisii labaad ee Febraayo, waxaa bilowday dagaalka daba dheeraaday ee Ruushka iyo Ukraine oo ilaa iyo haatan ka socda Ukraine, iyadoo Ukraine ay ka sabartay jasiiradda Crimea. Waxaa xilligani halis ku jira in Ruushku uu qabsado guud ahaan Ukraine. Haddaba, heshiiska cusub ee Somaliland iyo Itoobiya muxuu uga duwan yahay midkii Ruushku uu ku khiyaanay Ukraine? Abiy Ahmed heshiiska uu la galay Muuse Biixi isagoo ka faa'iideysanaya baahidiisa. Muddadiisu waxa uu jiri doonaa ilaa iyo 50 sano ama nus qarni, iyadoo dowladda Soomaaliyeed aysan lahayn tabar badan ama awood u dhiganta Itoobiya, iyo inagoon lahayn saaxiibo caalami ah. Heshiiskani waxa uu dhaawac weyn ku noqonayaa jiritaanka ummadeed ee kan Soomaali ahaan. Laakiin su'aasha la isweydiinayo waxay tahay, sidee Itoobiya ku ogolaan doontaa inay dalka ka baxdo haddii uu heshiisku dhamaado? Ileen baddu raran ma kartee? Aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee.